of Jeffrey Dahmer's Jeffrey Dahmer has Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, right? The Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer waa maxay sababta loo hadalhayo? Maxay tahay wax la yaab kale ee uu sameeyay? Muuqaalkan ayaad uga bogan doontaa. Jeffrey Lionel Dahmer oo sidoo kale loo yaqaano The Milwaukee Monster waxa uu ahaa dilaa u dhashay dalka Mareykanka waxaana lagu tiriyaa dilaayaashii ugu waaweynaa ee soo maray caalamka. Waxa uu ku dhashay gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka 21 May 1960. kaliya intii u dhaxaysay 1978 ilaa 1991 waxa uu dilay 17 qofood oo wiilal wada ahaa kuwa oo sanadahoodu u dhaxeeyeen 14 jir ilaa 33 jir. Dahmer ayaa sidoo kale la sheegay inuu ahaa qolada isku jinsiga ama LGBT-ga isaga oo wiilasha u dilayo marka hore daroogooyin siin jiray si ay u suuxaan kadibna dili jiray. Habka uu dilayana ma ahayn mid iska caadi ah oo qofka marka uu nafta dhaafiyo buu xibnihiisa hal u jarjari jiray kadib buu qaarna cuni jiray qaarna firijir gishan jiray. Su'aal kama taagna in Jeffrey Dahmer uu ahaa qof xanuunsan isaga oo ficiladiisa arxanka daran ay ka yaabiyeen dunida. Jeffrey Dahmer ayaa yaraantiisa ahaa cunug ay dayaceen hooyadii iyo aabihii iyaga oo aan siin jirin haba yaraatee wax attention ah ama kalgacayl waalidnimo. Aabihiisa Lionel Dahmer ayaa ahaa arday jaamacad dhiganayay iyada oo hooyadii ahayd mid iska hurda oo aan cunugeeda ka warhayn iyaga oo ay u sii dheereed in xiriirka hooyadii iyo aabihii uu aad u xumaa iyaga oo mar walba isku buuqi jiray. Sidoo kale hooyadii ayaa isku dayday inay isdisho. Jeffrey Dahmer oo ay arrimahaasi aad u saameeyeen ayaa noqday cunug kelinimada jecel oo mar walba wajigiisa walwal uu ka muuqdo isaga oo markii yaraaba xayawaanada dhintay inta uu soo xiriisto jarjari jiray cuni jirayna. Jeffrey Dahmer oo ay cadeed inuu xanuun maskaxiyan qabo ayaa waxa uu dhowr jeer mutay jeelka isaga oo ugu dambeyn qirtay inuu gacantiisa ku dilay 17 qofood waxaana la xukumay 15 February 1992 waxaana lagu xukumay xabsi daa'in. hase ahaatee markii ay ahayd 28 November 1994 ayaa xabsiga dhexdiisa lagu dilay waxaana dilay nin lagu magacaabo Christopher Scarver oo ay xabsiga ku wada jireen. qisadan oo ku dhawaad 30 sano laga joogo sababta ay dadku waqti xaadirkan u hadalhayaan ayaa waxa ay tahay in Netflix ay ka sameeyeen serious drama iyada oo jilaaga filimkan ay aad isugu eg yihiin Jeffrey Dahmer. intaas ayaan ku soo koobaynaa waxaan rajaynayaa inaad ka wada bogateen. Billahi tawfiiq.